waxaynu marka hore halkan aynu ka salaameynaa dhammaan madaxda kala duwan ha noqoto golayaasha kala duwan ee qaranka mas'uuliyiinta ama saraakiisha dawladda madaxda howlwadeennada jaamacadda aqoon-yahankeeda ardaydeeda ururada bulshada mudanta gobolka iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha rag iyo dumar iyo saxaafadda intaba aad baynu halkan uga salaameynaa Iftaax Ibrahim Sheekh baa la yiraahdaa sidoo kalena kamida odayada kamida board of directorska ama waxa ila mustambeedka institute-kan aad arkaysaan oo runtii deetana hadalka iba furkiisa laygu casuumay sideedaba sideen ognahay ka warqabka ama xogogaal noqoshada iyo gorfaynta arrimaha muhiimka u ah qofka bini'aadmiga shakhsi ahaan iyo bulsho ahaan waa xuquuq uu leeyahay waxaan ay qolada qawaaniinta ama guud ahaan maamulku ay dhahdaan afka sharciga waa civil liberty inaad ogaatay ka mid tahay xuquuqdaada waxaan filayaa waxaynu gorfaynaynaa arrin muhiim ah oo miisaaniyaddu muhiim miyay tahay mise ma aha arrin la isweydiiyo ma aha sidaa daraaddeed xarunta ISIR oo taagan the Institute for Strategic Insight and Research oo xarun ra'yi curin waxaa sanadkii toddobaad si istaba joog ah ugu foognayd falanqaynta miisaaniyadda dalka kana geysatay marar badan talooyin arrinka miisaaniyadda ku saabsan madashana tii kama duwana gorfayntu waa arrin muhiim ah waxay ummad aan gorfayniyo lahayn goobo lagu doodo dhaqankeedu waa guulwadiyo geeso wada fiiqan waxaan filayaa waankii cali ilayaalaha haddii wax aan gorfayn iyo dood laga samaynahayn waxaan filayaa guulwado bay noqonaa waa siduu hebel yidhi ayuun baynu noqonaynaa dooddu waa qayb ka mid ah kobaca qofka bini'aadmiga ah kama koobno oo keliya arrimaha miisaaniyadda sida kale ee waxa baaritaan cilmi ay ku samaysaa institute-ka ISIR arrimo badan oo la xidhiidha geeska Afrika iyo guud ahaan dalka oo arrimaha siyaasadda amniga arrimaha bulshada iyo dabcan tanaynu joogno oo ah dhaqaalaha kanay haddana u fadhina ah dabcan arrimaha kama marna in looga kitaab dayo dhacdooyinka caalamka isqaadasho iyo isdiidooyin kolba kii ay leedahay haddaba waxaa sanadkan falanqaynta miisaaniyadda looga soo dagal dhigay ama looga soo dagal raray inay ku dhacdo magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer oo la sooyaal taariikheed oo mug weyn oo curineed arrimo badan oo qaranka iyo geeska Afrikaba ah imakana waxaynu rabnaa qadiyadda miisaaniyadda qaranka inay iyada laftigeedu ay gorfaynteeda runtii halkan lagu qabto ISIRna ay noqonayso hormiidka dooda mugta leh ee dhacdada gobolka aanay ku koobnaan caasimadda had iyo jeer dooduhu waxay ka dhacaan caasimadaha dalka laakiin imaka waxaynu rabnaa in qayb ka mid ah oo runtii institute-kani uu yidhi bal horta dooddu halkan ha ka dhacdo waxay isweydiin lahaa daba ujeeddadanu ka leenahay maxay tahay miisaaniyaddan aynu ka doonaynaa waa kobcinta wacyiga miisaaniyadeed ee dalka guud ahaan iyo qof ahaan iyo gobol ahaan iyo degmo ahaanba asalka ama manbaca runtii miisaaniyaddu wax samada ka soo dega man wasalwa ma aha ee waa qadiyad ka unkanta dalka gudihiisa haddaba dhaqaalahaasi halkee uu ka yimaadaa qorshaha iyo qaybinta miisaaniyadda dalka sidee baa loo galaa sidee baa gobol ama hal la gobeeyo ama hal la degmeeyo ama hal la qaraneeyo sidee bay u dhacdaa se gobolkani kaalintu ku leeyahay sidaa daraaddeed waxa miisaaniyad oo dhan dhibteeda keena waxaynu ahno qaraabakiil gobolkiil qofkiil reerkiil degmakiil marka taa laftigeeda bal miisaaniyaddeeda cabirada caynkaasana sideen uga eegaynaa waxaan runtii hadalkaydi ku dheerayn maaye gorfayn doona khubaro aqoon u ah oo aynu arday u nahay waxa gardaadin doona oo aanay markii koowaad ahayn labaad ahayn saddexaad ahayn sanadkii toddobaad ay tahay Dr. Xasan Soodi oo garanaysaan isla markaana ah institute-ka directorkiisa ama gudoomiyaha institute-kan sidoo kale waxa soo jeedin doona Dr. Axmed Aadan oo isagana aad u wada taqaanaan oo isaguna qaybta finance-ka iyo qadadhiga qadiyaddan miisaaniyadda iyo saamaynta ay leedahay asal iyo abkeeda halkay ka timaado waxa kaloo inala jooga laba khabiir oo ah gorfeeyaasha madashu leedahay waa hormuudka kulliyadda dhaqaalaha Cabdisamed Libaax iyo sidoo kale waxaynu tahay aqoonyahan hormuud hore Yusuf Goodir oo iyagu dhammaantood arrintan bal miisaaniyadda iyo budgetka iyo waxay ku fadhido iyo halkay ku ororto iyo sida loo qaybiyo inaga dhergin doona si inaguna hadhow aynu uga qaadanno meelaha miisaaniyaddu ka timaadan inaynu kobcinno meelaha dhaliilaha leedahay inaynu ka toosino waxaan ku wareejinayaa Xasan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu furka iyo ujeedooyinka kooban ee gudoomiyaha macadka
كوميشنر عبد الفتاح وينسيي وحا راعي دونا كحيق دونا أستاذك أحمد آدم ayaa wuxuu 15 daqiiqo oo kaliya ku qaadan doonaa in buugga idin hor yaala horena laga yaabaa in aad si aragteen inuu si kooban u dul maro kadib panelka ustaad Yusuf Goodir iyo Cabdisamad Libaax ayaa iyaguna falanqeeyayaal ka noqon doona anna waan idin xiriirin doonaa yar kadib idinka mikrofoonka leedin ku wareejin doona marka aragteen ama akhrideen iyo marka aad daawateen soo bandhiga ustaadku soo bandhigo ayaa halka ka arki doontaan dabeetana su'aalaha ka dhasha ayaa wax ka weydiin doontaan sida idinku cadaato waxaan ku wareejinayaa ustaad Axmed Sultan Aadan si kooban inoogu soo bandhigo nuxurka miisaaniyadda ku jirta buugga arkistaan marka hore wuxuu ka kooban yahay laba buug oo miisaaniyadda qaranka ah oo waaweyn oo mid kasta 240 page iyo mid 200 page yihiin marka samarigaas intaas maanuna soo koobi doona waxaan ka hadlaynaa horta waa miisaaniyadduna waa halka laga duulayo institution kasta ama qaran kasta waxa laga dheehdaa muraayada laga dheehdaa waxa weeyaan miisaaniyaddiisa marka miisaaniyaddaada la helo waxa la garanayaa halka loo socdo waxa la qabanayo iyo horumarka la doonayo in la gaadho haddii horumar jiro iyo haddii aan horumar jirinba haddaba falanqaynteednan maanta ama maxaa la miisaaniyaddan ama bandhigeennan wuxuu ka kooban yahay miisaaniyadda qaranka guud ahaan oo ka kooban 6 gobol ee Soomaaliland ee halka maapka ka arkaysaan ayuu ka kooban yahay waxaana lagu talagalay inay hagto oo miisaaniyaddaas ay ka muuqato ilaa iyo maxaa la 6 qodob halka ugu horeeya oo ka ugu horeeya yahay qorshe dhaqaale sidaa awadeed halka waxay nagu jira isagana horumarinta dhaqaalaha oo isagana maxaa la yiraahdaa kana mid ah maxaa la waxyaabihii kaameenka lagu galay ee xis dawladda nimanka joogta ay ka mid tahay qaybta dhaqaalaha in iyaduna miisaan gaar ah ay saaraysay oo qodobka saddexaad ama tirka saddexaad uu ka ahaa haddaba aan miisaaniyadda u galo halkan waxaan soo bandhigi doonaa oo jadduska idin muuqda uu sheegayaa laga soo bilaabo 2007 ilaa 2025 sida ay soo bedelaysay miisaaniyadda qaranku sanadkii ugu horeeyay 2017 oo kale 220 maraysay maantana waxaan maraynaa 556 milyan oo dollar weyn miisaaniyadda qaranku marka intaas oo isbedeladaas marka wax isweydiinana miisaaniyadda inta la kordhisay kororka ay miisaaniyaddu koraysay ma la koraysaa horumarku ma la kordhaya si la kordhi maayo ama miisaaniyadda halka la marayay dhaqaalaha soo kordhaya halka marayay iyo ka maanta isbedelkiinu ka muuqda ee dawladda baahan isbedelku uu muuqdo marka taasi waxa weyn wata guud yaana waa sida ku socdaan haddaba miisaaniyaddan maanta aan ka hadlaynaa ama aan soo bandhigaynaa maxay kooban tahay labada buug ee miisaaniyadda qaranka waxay ka kooban tahay 4 qaybood qaybta ugu muhiimsan ama ugu horeysa waxa weeyaan miisaaniyadda dawladda dhexe oo 6% ah waxay ugu xigta dawladaha hoose ee dalka waxay kooban yihiin 101 degmo marka miisaaniyadda waan arki doonaayo tirada kuma wada jiraan tiradaas laakiin qayb kamid ah baa la geliyay iyadana maxaa loo gelin waayay ama maxaa looga tagay kuwa ka maqan waa su'aal kale waan dhaafaya waxa kale oo jira qaadhaan bixiyaal kamid ah miisaaniyaddan oo la soo geliyay sidaas oo kale waxa jira iyaguna hay'ado fara badan oo dalka ka shaqeeya oo mashaariic soo geliya isla markaasna aan ku xisaabsanayn oo aan miisaaniyadda qaranka ku jirin taasina waa su'aal kale maxaa loo gelin waayay kuwaas maxay ku maqan yihiin ama maxaa kuwa looga reebay miisaaniyadda iyaduna waa hawl kale oo iyaduna aan maxaa la yiraahdaa la isweydiin karo waxa jira hay'adaha iyaguna macaash ka sameeya marka hay'adaha macaash ka sameeya iyaguna waxa weeyaan waa 12 hay'adood waxa kamid ah wakaalada biyaha kala kamid ah haamaha shidaalka kamid ah dekedaha kamid ah madbacadda qaranka kamid ah marka kuwaasina waxay ku iyaguna maartay macaash ka sameeya public enterprise loo yaqaano oo iyaguna ka ah boqolkiiba waxay ka yihiin iyaguna boqolkiiba 7 markaas guud ahaan taas waxa weeyaan waa miisaaniyaddii iyo qaybaheedii haddaba haddaan u gudbo dawladda dhexe oo taan doonayna inaan culays ka saarno oo ka kooban 61 institution 27 wasaaradood iyo inta kale oo ah laamo kale oo iyaguna la taxalluqa dawladda dhexe marka dakhligaas wuxuu ka soo galaa ama meelaha cashuurtaasi ciidda lagu qabtaa waxa weeyaan marka loo eego meelaha dakhliga cidda qabata ama sidoo ku yimaado
waxa loo yaqaano international trade ama ganacsiga caalamiga waa waxa wixii la dhoofiyay iyo wixii soo degay oo customiska ay la cashuurta qabta oo cashuurta customiska ay qabtaan other taxes waxyaabo cashuuraha kale iyaguna ay dawladdu qabato adeega iyo agabka kale iyana wixii la cashuuro iyo mushaharka shaqaalaha oo aan ka war hayno 6% in la cashuuro qofka soo shaqaala oo mushahar qaadanaya 6% in laga qaado oo kaasina isaguna gaar bu jira waxa kale jira cashuurta kale iyana la yiraahdo cashuurta macaashka oo ka 6% iyaduna 3 ka marka guud ahaan dawladda dhexe miisaaniyadiisu halkaas ka timaada haddaan dhinaca gobolada eegno siyaaro babar dhigno wadanka waxa laga dhoofiyay sanadkii soo ahaan 2024 ilaa 4 milyan oo neef baa laga dhoofiyay 4 milyan neef laga dhoofiyay 70% waxay ka yimaadaan ama ay ku dhaqan yihiin oo ay soo maraan gobolada Togdheer soo Sanaag marka cabir ahaan dhulka loo eegana dad ku labalaamaya cabirkiisa halkaas ka arkaysan qof kasta waxaan filayaa inuu arkayo inta leeg yihiin saddexda gobol oo marka inta kale loo eego gobolada kale inta leeg yihiin geographical marka loo eego sida awgeed marka halka waxa cad dimar sida ay u kala horeeyaan asaas ahaan u kala weyn yihiin xoolaha nool ee halka ayagana waxa la dhoofinayaan waxa weeyaan waa hargihii iyo saamihii iyo meedigii oo iyaguna intaas ka soo baxa 100% iyaguna eerida ka yimaada haddaba miisaaniyadda qaranka aan aragnay xagee ku baxdaa haddii isweydiino meelaha ku baxdaa 38% waxay ku baxdaa amniga qaranka ay ku baxdaa 2% waxay ku baxdaa biyaha caafimaadka 5% environmentka 1% 17 dhaqaalaha infrastructure ama economiga waxaas 5% ku baxa xagga dawladda iyo hay'adahaasna wax ku baxa maxaa la yiraahdaa 19 energy-ga waxa loo qoondeeyay 1% inay ku baxdo tacliinta waxa laga qoondeeyay 7% wax soo saarka dalka waxa loo qoondeeyay 2% haddii aanu gudubno dhinaca hay'adaha waxa jira iyaguna 10 oo ku deeq bixiyaasha ama qaran bixiyaasha oo World Bank uu ka mid yahay 760 milyan ayaa ku jira miisaaniyadda lama yaqaano gobolka ay ka shaqeynayaan mashaariicda la gelinayo iyo cidda go'aanka gaadhaysa miisaaniyadda ku jirta laakiin gobolka iyo ma goboleysna cidda isticmaalaysa ama gobolka lagu horumarinayo iyaduna ma cadda miisaaniyaddu ma sheegayso haddii aan eegno dhinaca tan iyadana degmooyinka oo falqaynta dhinaca degmooyinka degmooyinka miisaaniyadda maadaama waxa kamid ah miisaaniyadda dawladaha hoose iyaduna kamid ah halkaasina wax weyn degmooyinka dalka aan soo eegno 101 degmo ay ka kooban yihiin degmooyinku 46 kamid ah 45 kamid ah ayaa miisaaniyadda qaranka ku jirta maanta in hortaala 56 kamid ah miisaaniyaddu kuma jirto degmooyinkaas waxay kala baxaan A iyo B iyo C iyo D bay kala baxaan tusaalahaan oo kale A waa 7 B oo kale waa 5 maxaa la yiraahdaa C oo kale inoo 12 haddii aan yiraahdo D oo kale iyadana waxa ku badan 78 marka miisaaniyadda laftigeeda qaarna way ku jiraan qaarna kuma jiraan qaarna lagu soo daray qaarna laga tagay haddaba miisaaniyaddooda waxay ku baxdaa eedo quran yaraan la askareynay eedaasi 67% waxay ku baxaan waxa loo yaqaano qarashka joogtada ah 3% waxay ku baxdaa iyaduna horumarka haddii aan soo koobno haddaba miisaaniyadda waxyaabihii natiijada ah kolley way fara badan yihiin midhiga labaan ka sheegi doonaa miisaaniyaddani waxa weeyaan miisaaniyad iska qayb ah oo aan lahayn wax la yiraahdo miisaaniyad wax qabad aan ahayn marka perform waa wax la yiraahdo line item budget ama waa traditional wallahi item budget item bay u taaltaala laakiin qofka shaqadan qabanaya waxa la qofka mushaarkan qaadanaya waxa la qabanaya ma cadda talabaad kale ma cadda ma A ma B ma C ba marka waxay weeyaan miisaaniyadda iska muhmala cidda markaa miiska fadhida ayuu go'aan gaaraysa oo haddii ay mushaar ku bixinayso haddii ay socodsiin ku bixinayso sahay safar ku bixinayso waxa la aliyo wixii ku bixinayso mana goboleysna waxa la aliyo wax gobolka Togdheer ama gobolka Saaxil ama gobolka Sanaag gobol kasta baa noqday wax gobol oo sheegaysa ma jirto miisaaniyadaasi waxaan halkan dib u yara eegaya iyada dawladda hoose Burco maadaama iyadu aan Burco joogno waxaan soo qaatay iyada si specific ah soo qaatay inaan il gaar ah ku eegno miisaaniyadda dawladda hoose Burco horta waa 5 milyan la 5 milyan 2 milyan oo kamid ah waxa weeyaan mushaar shaqaale oo gibid wax ku baxaysa mushaar shaqaalaha oo noqonaysa 39% taas markaa waxay ku tahay dhibaato dawladda hoose markasta waxa dhacaysa in amaah raadiyaan markay bishu dhamaato ay bangigii amaah u doontaan dadweynaheena waxaan ku sugaynaa anaguna inay xino qabtaan oo adeeg inoo qabtaan marka iyaduna bangigii bay ka amaahanayaan oo wax laga yaabaa in markay bishii soo gaadho in maayarkii iyo waraaqay iyo bangigii tagaan ay dhahdaan bal bisha naga sii bixi waqti badan ay ku qaato tadabana bishii dambana hadii sidii loo bixiyo marka taasna caqabad dhaqaale ayaa jirta oo aad iyo aad u baahan taas oo sababay kale dagaaladii ka dhacay dhinaca bariga
waana ta keentay markaa inay deymo yimaadaan iyo dhakhtarka cusbitaalka burcaba oo labadaba dee culays dhaqaale oo aad iyo aad fara badan ayaa haysta una baahan kaliba in dib laga fikiro guntiga gabadhii miisaaniyadda sanadeedka tan dhaaftay laakiin waxaan u baahanahay in miisaaniyadda soo socota sanadka 2026 ee sanadka gudihiisa la diyaarinayo inaan u diyaar garowno oo gobol ahaan aan u diyaar garowno iyo waxqabad ahaan oo aan kula xisaabtano maadaama gobolka ama soo saaro miisaaniyadaasi gobolka ugu weyn ama gobolka ugu muhiimsanahay oo xoolaha la dhoofinayay ama la cashuurayay ay ka soo baxso gobolka Togdheer ama gobolada galbeedka waxaan la gobolada bariga waxaan u baahanahay marka taasna in isha lagu hayo intaasaan ku soo koobaya aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay cilmi baare Axmed Aadan sida waafiga ah ee uu inoogu faahfaahiyay nuxurka ku jira miisaaniyadda Axmed inta aanan gudbin panelka iyo sidoo kale ka soo qaybgalayaasha balada waxaan doonaynaa inaan ku yara noqono nuxurka aad soo bandhigaysay waxaad sheegtay sanadkan in dhaafay 2024 in burca laga dhoofiyay 3.8 milyan oo neef taasoo ka dhigan in boqolkiiba 75 xoolaha la dhoofiyay ay ka soo jeedaan Sool Sanaag iyo Togdheer maxay taasi ka dhigan tahay oo macnaheedu tahay marka loo eego sidee wax uga soo baxaan ama wax dawladdu uga samaysaa ma naqaanaa tiradii ka soo xarootay sanadka 2024 waxaa ku taala ama miisaaniyaddeena ku taala in 4 milyan oo neef la dhoofiyay sanadkii 2024 haddii markaa inta la dhoofiyay boqolkiiba 70 ay ka soo baxaan gobolada bariga ee uu ka mid yahay Togdheer ee uu ka mid yahay Sanaag ee uu ka mid yahay Sool production hadda ay soo saaraan waxyaabaha ay soo saaraan goboladaasi dee weeyaan xoolahaas meesha ka yimaadaan waa area-daas laakiin nasiib darro iyaga lagu ma cashuuro cashuurta waxa lagu qaadaa gobolka Saaxil marka ay dhoofayaan baa la qaadaa oo customs-ka qaada waayo haddii halkan lagu qaadayo halkan lagu cashuurayo dee toos bay xooluhu inta halkan lagu cashuuro ayay boqolkiiba 10 dawladda hoose heli lahayd oo customs-kaas xoolaha la cashuuray boqolkiiba 10 dawladda hoose burcane heli lahayd gobol ahaanna waxa la oran lahaa marka lagu dhufto 4 milyan boqolkiiba 10 ay qaadaan neef kasta oo xoolaha dhoofaya sida ku taala xeerka customs looga lagu cashuuro kastamada boqolkiiba 10 marka hore neefku wuxuu ku qiimeysay $100 kadibna boqolkiiba 10 bay dawladda cashuurtaa marka waxa noqon lahayd 4 milyan haddii la cashuuro oo boqolkiiba 70 lagu dhufto lacag 3 milyan ay gobolka Togdheer heli lahaa ama gobolada bariga ay heli oo ah xoolihii dee ka soo baxay halkan laga dhoofiyay laga kaxeeyay okay maxaa kaga soo xarooda hadaba gobolkan maxaa saddexdan gobol maxaa miisaaniyaddii 2024 ama miisaaniyaddan 2025 maxay ku soo celisay saddexdan gobol miisaaniyaddan aan arkaynay sida aan barnaamijka ku jeedinayay ma goboleysna horta marka hore ma aha mid goboleysan oo gobolkaasi waxa loo sii daayo ama uu helo lama yaqaano taasina waxa weeyaan waa decentralized ama waxa maamul dadji wax la yiraahdo ayaan jirin haddii markaa maamul dadjir lahayd waxa la garan lahaa wixii halkan lagu soo celiyay ama loo soo transfer gareey baa la garan lahaa laakiin lama yaqaano waa centralized gebigeedaba waxa weeyaan maamulkiisa iyo arrintiisa iyo cashuur qabashadeedaba waa dawladda dhexe iyagaana markaa meeshii la geenayo yaqaano markaa kuma cadda su'aasha u dambaysa Axmed markaynu leenahay maamulka hal la daadajiyo ama miisaaniyadda dakhligeeda hal la daadajiyo ama bixinteeda kharash gareynteeda hal la daadajiyo maxaa loola jeedaa maamul daadajintu waxa weeyaan in maamulkii iyo maxaa la yiraahdaa shaqada la qabanayo haddii noqonayso cashuurtii la qabanayso adeegii la qabanayo dhammaanba inay degmadooda maamulkaasi ay u madax banaanaato oo ay iyadu hawlaha ay qabato isla markaasna marka ay qabtaan cashuurta ay qaadaan dee adeegooda iyo maartay waxay u baahan tahay in la sameeyo markaa bilmatal waxay u baahan tahay sida ku taala dee maxal dastuurkeena uu sheegayo waxa loo baahan yahay maamul daadajin horta maamul daadajintu aad iyo aad bay muhiim u tahay muddo badanna waa laga soo shaqeynayay waxaa jiray mashaariic fara badan oo maamul daadajinta oo culays badan lagu saaray dawladaha hoose lafteeda matalan maxaa laga samayn karaa hadda ahaan si cashuurta ama dakhli samaynta cashuuraha loo daadajiyo dakhliga samayntiisa ama kharash gareynta loo daadajiyo talaabada ay tahay in la qaado maxay tahay talaabada ay tahay waxa weeye in la qaado waxay tahay waxa weeyaan gobol walba wuxuu doortaa baarlamaan
وحنا برلمان كم مثل يا جرا marka kuwaas ay in xisaabta u daba galaan oo ay gobolkii wixii u soo baxay u daba galaan oo gobolkeed wixii u soo baxay maamulkiintii arrimihii wixii xisaabta loo dajin waayay ay la xisaabtamaan dawladda dhexe kuwaas ay tahayna daba galaan maamul dajinta marka ay halka ka hawl galaan weeyaan oo halka laga shaqeeyo aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed bal waxaan doonayaa hadaba inaynu isyar weydiino in badan waxa laga hadlaa wadarta guud ee wax soo saarka ama GDP-ga oo ah waxyaabaha lagu cabiro kabaca ama awoodda dhaqaale ummaduhu ay leeyihiin miisaaniyadda amkeedana hor taala wadarta guud ee wax soo saarka Somaliland waa 2.4 bilyan oo dollar sidoo kale dhanka kale marka laga eego waxaynu hadalkeena ku celinaynaa oo ka sheekeynaa miisaaniyad bal waxaan doonayaa Yusuf inuu inoo kala saaro maxay tahay wadarta guud ee wax soo saar ee ummadeed iyo miisaaniyadda ummaddu ay leedahay maxay kala yihiin ma raba inuu si kooban oo aynu u wada fahmi karno inuu ugu sheego labadaasba waxay cabiraan noocyo kamid ah garanaysa dhaqaaluhuna asaliyan waxa weeye waxyaabaha qofka aadamiga ahi uu maalin walba la daris yahay marka subaxii soo kacda wax iibsanaysa aad tira waa imisa waxaas macnaheedu waxa weeye arrin dhaqaalaad ka hadlaysa markaynu soo noqono GDP-ga waxay u taagan tahay gross domestic product waxa weeye af Soomaali marka lagu macnayo waxay noqonaysaa wax soo saarka wadan xuduudkiisa ka soo baxa oo waqti go'an leh waa inta badan waa sanad wax soo saarka waxa la isugu geeyaa dhammaan wax soo saarkii oo dhan waxaana uu ku qiimeysan yahay lacagtiisa marka wax soo saarka markaan leenahay waxaan u jeednaa midna xoolaheena hadii geeleenu geel dhalo oo kale geela dambe ee soo baxay baa la xisaabinaya maxaa lagu xisaabinayaa suuqa inta uu ka joogo waxa soo dhan baa la isu geynayaa inanta subaxii la xooxda dubtaa la xooxdaas waa production kaas waxa weeye value added buu noqonayaa ama waxa weeye waxa ay inantaas ku kordhiso marka waxa soo dhan baa la isu geynayaa waa maxay waxa weeye all total monetary value in the market taas waa maxay waa GDP-ga national budget ama budget marka laga hadlayo waxa weeye dakhliga dawladda soo gala iyo sida uu bixisay sida aynu u naqaano laakiin national budget ku waxa weeye more broader sense uu leeyahay waa maxay waxa weeye wuxuu determine garayaa ama wuxuu hagaajiyaa national priorities dawladdu ama wadanku markuu isu yimaado dana ma leeyahay mustaqbalka ujeedooyin ma ka leeyahay iyo economic goalska marka miisaaniyadda haddaynu si yaro fudud dadka uga sheegno macni waa qayb kamid ah wadarta guud ee wax soo saarka oo dawladdu urursanayso ay wax ku qabanayso markaan labadaa kala saaro GDP-gu wuxuu noqonayaa dakhliga soo gala dadka oo dhan ayuu noqonayaa budgetkuna wuxuu noqonayaa dakhliga dawladda soo gala saasuu noqonayaa waa qayb yar oo kamid ah dawladdii baa qayb yar ka soo qaadanaysa aad iyo aad baad mahadsantahay waxaan u gudbayaa Cabdisamed Libaaxo isaguna imika ah hormoodka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Burco marka laga sheekaynayo Yusuf sidoo imika inaga warramay wadarta guud ee wax soo saarka wadanka ayuu ka warramay marka bal waxaan doonayaa Cabdisamed inaan weydiiyo horta maxaynu ku garan karnaa in halkan wax laga soo saaro gobolkan Togdheer ama gobolka Sool ama gobolka Sanaag waa maxay indicatorska aynu hayno ee aynu ku qiyaasanay waxa la afka qaraad lagu dhaha main economic indicatorska gobolkan ama saddexdan gobol yaala maxay yihiin si yar oo kooban ma noogu sheegi kartaa Cabdisamed tusaale ahaan boqolkiiba 85 baa marka dhoofka qura la qaato la yiraahdaa sanadkan oo kale hadii aynu eegno fikradii u dambeeyay sheegayaan in ay 85% foreign export lacagta aynu ka helno inayna soo geliyeen xoolo that means wadan kasta waxa uu ku daalaa waxa uu dibadda u dhoofiyo iyo in ay isleekaadaan waxa wadanka soo gelaya lacag ahaan hadiyo goor stability-ga price-kana waa ta jaangoyso marka lacagteena waxa ugu weyn ee aynu sixir bararka kula dagaalanaa inta ugu badan waa lacagta shilinkeenuna wuxuu kor u kacaayo oo sixir bararku ina saameeya
marka had iyo goor arigaasi istaagay lacagta adaga inaga soo gelaysa ariga ay gaabiso waa meelaha ama had iyo goor waa mararka uu dollarkeenu sare u kaco taasi waa hal indicator weeyaan oo marka la eegayo lacagta adaga inaga soo gasha marka la eegayo xagga employmentiga waa sectorka ugu badan ee employmentiga guud ahaan waddanka oo dhan haddii si gaara loo soo qaado gobolkana ratio-daasi way sii kacaysaa oo 70% hadduu employmentiga waddanka ka yahay gobolkan wuu ka sii badanayaa employmentigu inta uu ka yahay aggregate-ka waddanka marka la qaato hadii goor region haddii loo sii eego halkan waxaad 70% buu shaqo abuur u abuuraa 70% ayuu guud ahaan waddanka ka yahay in uu source of employment uu yahay laakiin haddii gobolkan la sii qaado figurkaasi inta uu ka sii sareynaya waayo theory ahaan haddaynu qaadano gobolkan inuu gobolada kale kaga maaragtay badan yahay xagga wax soo saarka xoolaha figurka uu sii badan laakiin average-ka marka gobolada dhan la isu daro ayuu 70% ku soo dhacaya marka qodobka labaad waxa weeyaan waa source of employment xagga kale marka laga eego GDP-gan aynu sheegaynay guud ahaan waddanka 60% wax ka sareeya ayuu noqdaa ama figurateku inta badan sanadba uu isbedelaa hadday 60% qaadano boqolkiiba 60 buu ka yahay wax ka badan ayuu GDP-ga uu ka yahay marka haddaynu gobolkan gaar u qaadano macnihiisu oo aynu 60-gaba qaadano macnaheedu waxa weeye 60% baynu GDP-ga waddanka ama wax soo saarka guud ee waddanka aynu contribute karayna way halka igu jawaabsan waxaan doonayaa bal Axmedow haddaad miisaaniyadda dib ugu noqotay qoondada looga diyaariyay miisaaniyadda xanaanada xoolaha darajadeebay matalan kaga jirtaa haddiiba ay qoran tahay sidaad sheegtay miisaaniyaddu ma gobolaysna way wasaaradaysan tahay haddiiba la eego wasaaradaha lafteeda halkeebay kaga jirtaa inteebaa se ugu jirtaa qoondada budget line-ka ama inta halkee ugu jirta xagga wasaaradahaana waa 8 marka wasaaradaha loo eego waxay kaga jirtaa lambar 11 ay noqonaysaa liis 11 bay ka jirtaa 11 marka loo eego ay kaga jirto total ahaana waxay tahay 4 milyan ay loo qoondiyay miisaaniyadda qaranka oo marka horena guud ahaana ah 460 iyo 556 miisaaniyadda guud qaranka hase yeeshee 40 milyan ee la qoondiyay laftigeedu waxay ku baxdaa oo ay u badan tahay inay ku baxdo gobolada galbeedka sababtuna waxa weeyaan haddii workshop la qabanayo haddii wax la qabanayo wax oo dhan waxay shaqada wasaaraddu waxay tahay dowladda dhexe waxay shaqadeedii oo barashkeedu ka socdaaba Hargeysa statistics-ka intee leg baa la verify garan karaa la isku halayn karaa de kulley waxa weeyaan de marka de geography loo eego meesha iyo maxaa la yiraahdaa xoolaha laftigiisa marka eegto waxay de kulley u baadhis dheeraada iyo cilmi baadhis inta ka sii badan bay u baahan tahay laakiin muuqaal haddaad imka eegto wax lagu qanci karayo weeyaan waxaan rabaa inaan soo gudbiyo aad bay u mahadsan yihiin soo bandhigaha iyo falanqeeyayaashu waxaan rabaa marka inaan soo wareego dhinaca ka soo qaybgalayaasha haddii ay ra'yi ku darayaan iyo haddii ay su'aalahayaan saddex dhinac baan ka qaadi doonaa marba saddex su'aalood baan qaadi doonaa hadday si guud u sheegayaan iyo haddii ay si gaara cid ugu address garaynayaan su'aashoodana xor bay u yihiin kulley waxaan ahay sarkaal ka socda wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ma la odhan karayaa waxa sabab u ah oo aasaas u ah in horumarintu ay gaari waayaan xeerarka waxa weeyaan dee jira ee caqabadda ku ah taasoo qodob kale GPD-ga marka la eegayo ama waxa weeyaan dakhliga guud ee Somaliland soo gala marka la qiimeeyo sida ku cad Somaliland figures-ka buuga sheegaysay oo xarunteeda taala 2022 ilaa 23 waxa u dambeysay 3.3 bilyan waliba dakhliga marka la eego dadka waxa la yiraahdaa marka gaar loo eegayo dadka waxa soo gala 700 ilaa 800 dollar ba qofkii cala gaar marka la yareeyo weey waa sida ku cad weey marka dakhliga waxa sabab u ah ma la oran karayaa waxa sabab u ah xeerka ay ninka tilmaameen ah maadaama uu xoolihii nool waxa wada dhoofinayo su'aashayda koowaad waxa weeyaan qoondooyinkii ama miisaaniyadda ma jirtaa sanadkan wax loo qoondeeyey gobolladii bariga waxaan u jeedaa
degmooyinkii Soolbari iyo Buuhoodle miisaaniyadan wax qorshe maxaa dhahday ma loogu talagalay haddii aan loogu talagalin xaggee loo wareejiyey su'aasha labaad waxa weeyaan cisbitaalka Burco culaysyo dhaqaale ayuu baryihii u dambeysay la daaladhacay sidaynu ognahay oo ay keentay dagaaladii bariga ka dhacay dagaalkii Laascaanood iyo intii ka dambeysay dagaaladii kale faramaha ka dhacay culays dhaqaale miisaaniyadu ma ugu tala gashay maxaa dhahday wax ma ugu tala gashay ay ku yareynayso culaysyada ama qoondooyin cisbitaalka Burco gaar ahaan loogu tala galay ma ku jiraan miisaaniyada waa maasantii waxaan qabaa magaalada Burco caqabadaha haysta haddaan commentiga ku horeeyo wax kamid ah caqabada sharci baa kamid ah oo kaga imanaya xeerka kastamada iyo xeerka isku maamulaan dawladaha hoose iyo degmooyinka lagu maamulo iyo gobolada baan leeyahay marka labada waxay ugu waaweyn Burco soo galaan arkayna cashuurba ku lahayn qashinkeedu u yimaado wax kamid ah xoolaha sanadkii lagu iibsado iyo qaadka maalinlaha lagu isticmaalo labada midna wax kama soo noqdaan taas waa taa marka su'aashayda haddaan u gudbo waxa weeye dawladda hoose oo kale kabka dawladda dhexe kaga yimaada iskaba koobnaadee I think inuu $1 milyan yahay sanadkii kaasoo kale dawladdu ma u bedeli kartaa mashaariic muuqda oo ay soo daba gasho dawladda hoose waxay magaalada Burco gudaheeda kala soo baxdo ee cashuur ay ka urursato expense-keeda maalinlaha ku bixiso laakiin wixii dawladda dhexe ka imanaya ma loo bedeli karaa dawladda hoose ma soo qoran kartaa mashaariicda priority-ga ah dawladduna hadhow si accountability-gu fududaado oo hadday waddo ku bixisay hadday xanaano ku bixisay saas oo kale su'aasha labaad waxa weeye 2% baa jira gobolada bari lagu talagalay lacagtaas oo marka lagu dhufto miisaaniyadda guud $8 milyan aan ka yarayn lacagta goboladii bari ma la siinayaa oo maanta ugu baahi badan yihiin wad mahadsantiin su'aashaas waxay ahayd mushkiladda xoolaha dhoofintooda mar baan la sheekaystay nimankan xoolaha dhoofiya marka waxay ugu yiraahdeen problemka ugu weyn ee xoolaheenu waxa weeye maraakiibta lagu qaado oo waxay yiraahdeen maraakiib daashay baa timaada in badan bay badda ku jiraan dabadna xoolaha miisaankooda yaraada haddii 4 bilyan baa la sheegay inay wasaaradaba budgetkeedu yahay haddii budgetka la kordhiyo sida ku qornayd wararka aynu helay waxa kamid ahaa livestock sector wuxuu employ garaya 70% lacagta dibadda inaga soo gashana 85% bay ayay keentaa marka labada markaad eegto dhaqaalaheenu wuxuu ku fadhiyaa cashuurta beeruhu waxay ka noqdeen wasaaradda baan filayaa in ahayd meel aan eegay wasaaradda industry-ga waxay tiri 20-25% baa dadka beeraha ku tiirsan bulshada marka la eego dhaqaalaheenu wuxuu ku fadhiyaa xoolaha mar hadduu ku fadhiyo waxa la doonayaa in lacag badan la geliyo xoolaha xagga security-ga waa qayb kamid ah waxay maraakiibta casriga ahi waxay u baahan yihiin damaanad marka waxa soo dhimo wax laga shaqeyn karo haddii investment la geliyo mid kamid wuxuu weydiiyay cashuurta kuleynta gobolada bari oo kamid ah miisaaniyadda qaranka horena ugu jirtay imikana ku jirta cashuurtaas waa la qaadaa sanad walbana miisaaniyadda way ku jirtaa laakiin mar qodhamaynaan maqal cashuurtii gobolada bari lagu talagalay ee lagu horumarinayay ayaa wax mashruuca noocaas lagu qabtay meel ay ku qaranaysay meel lagu qabtay meel lagu soo bandhigay ma jirto marka taa waxay ahaan lahayd in ka joogto wasaaradda maaliyadda oo bal halkaas cashuurta halka la mariyay miisaaniyadda halka la mariyay sanadkana way ku jirtaa in taas ay horta in ka joogto waxa kale oo iyada jirta marka miisaaniyadda saa u sii eego miisaaniyadda dhinaca bariga aan isha yara mariyo waxa jirta cashuur la saaro shidaalka ka soo gala gobolada bariga dhinaca kale haddaad galbeedka eegto lama saaro kuma jirto laakiin miisaaniyaddan imika aanu hayno ee 2025 waxa jirta cashuurta la saaro shidaalka ka soo gala xadka gobolada bariga haddaanu imaata caafimaadka sidaan ka warhayno cusbitaalka Burco wuxuu arrin faraal buu ahaa wuxuu ahaa haddii wixii dagaalkii oo ka dhacayay wax kastoo dhacayay waxa la keenayay meesha la yiraahdo Burco la keenayay Laascaanood iyo xagga dhaawacyada waxa la keenayay halkan waana meesha laga soo gudbinayay marka wax ka tiin culays dhaqaalo aad iyo aad u fara badan u yimaado gobolkii isla markaasna ay bilaabanto deeni
marka maalmo inta qof 6 qof inta soo dhaawac la keeno xaaladahoodii critical yihiin taasina waa takantay marka in deyn maanta uu dhakhtarkii naga xiran yahay oo aanu shaqo u shaqeynayo macna la aan jirin taasi wata saameyntaasi si kale loo saameyso degmada laftigeeda dhaqaalaheeda hoos u dhacay goboladii bariga ku xidhnaa xooluhu ay u gudbi lahaayeen ama socodkii baa isagoo xidhmay taasina waa tahay qayb ay ka tahay in dawladda hoose Burco leedahay maanta deyn baa lagu leeyahay oo taasina waa qaybta labaad marka horta intaasaan ku soo koobayaa haddii ayaga xagga xeerka in xagga xeerku taabtay waa xeerkaas wax filay inuu jeedo xeerkii loo jeedo xeerka xeerka midanta cashuuraha waxa la sameeyay 2002 baa la sameeyay marka kaas sidii caqabadihiisa iyo ciladihiisa hore looga hadlay doodo hore kalena waa laga galay laakiin wax laga bedelay oo ilaa hadda macna loo ka jira ma jiraan marka kulli caqabadahaasi waa caqabado jira iyaguna waxaan idin weydiinayaa miisaaniyadana falqaynaysa 25 waana dhaqangalo maxay ahayd waa lagu shaqeeyaa dawladdu taasay ku shaqeysaa marka outcome-ka imaka ka doonaysaan falanqayntani waxa weeyaan in wax laga bedelo miisaaniyada 27 iyo kuwa soo socda way tan already waa dhaqan waa lagu shaqeeyaa baasheeda labaad waxa weeye waxay ku salaysan tahay institutions ama wasaaradda ha noqoto ama hay'adaha kale dawladda ha noqotee systemka decentralization ku habboon yahay in gobollo lagu saleeyo regional wise siyaasad moodaa in ay dalka ku wada gaari lahayd oo ay ma garanaysaa ay dee waddankuna isu miisaamin lahaa way miisaaniyaddii imaka waxa laga yaabaa haddii 2 qaybood loo kala qaado oo qayb ay tahay maxay ahayd ay tahay expenses ama expenditure ay u badan tahay kharashkii dawladda ama mushahar ama running cost kale ha noqoto waxa kolley idinka buugana maan akhri hal ahaado ay lagu isticmaalo caasimadda iyo xarumaha wasaaraduhu ku yaaliin iyo degan tahay oo gobolladii kale aan waxba ka gaadhin developmentka laftiisa qaybtii developmentka haddii wixii yaraa developmentka ugu jiray laftiisa waxaan filayaa inaanay si fiican u gobolaysnayn marka ma laga systemkan iska ku salaysan oo ma loo wareegi karaa system gobolla ah gobol waliba inuu miisaaniyadiisa diyaarsado hadday tahay expenditure iyo hadday tahay development labadaba su-aasheeda saddexaad waxa weeye مثلا dakhliga kastamada ka soo xarooda ama custom duties income-ku revenue-gu miyuu xiriir la leeyahay gobollada ma wax gobol ka soo baxayba yani مثلا waxaa jira in la yiraahdo oo xeerarka ka mid ah xeerarka la tilmaamayay degmada custom ku yaalo gobolka xataa ma aha degmada custom ku yaalo custom-kaasi lacagta uu qabto 10% ka mid ah waxa la degmada kastamadina waa meelo maxduuda waqti baan xusuustaa la weydiiyay wasiirkii maaliyadda hore Dr. Saad la yiri lacagta ay degmadu iska qaadanaysaa maxay tahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay wax royalties iyo wax la mid ah yani wax degmadani ay xaq u yeelatay oo production ay soo saartay ma waxaan u jeedaa income ay soo saartay marka customisku waxyaabaha ay qabtaan ma income ba internationally iyo caalamkaba ma income degmadu soo saartay ba ama ma khayraad degmada ka soo baxay ba su'aashooda weydiinay cabsida waxa weeye falanqayntan iyo soo koobidan lagu sameeyay miisaaniyadda kolley waxa muuqda goldolooyin badan ama waxyaabo failures ba ka muuqda waxyaabaha ka muuqda maxaad ku talin lahaydoo si wax effective uga soo baxaan miisaaniyadda maxaad ku talin lahaydoo lagu daro miisaaniyadda ama si ay wax successful u noqoto su'aasha labaad waxa weeye waxa ka muuqda sidii la soo bandhigayay bandhigii uu sameeyay Axmed Ibrahim waxyaabo gobolada bari wax aan u qalmin oo kale imka 330 milyan ay helayso
inay 4 milyan gaasho 4 milyan ay ku baxdo gobolada galbeedka waxyaabahaasoo kale maxaa sababay aad u malays maxaa guddig u ah miisaaniyadaha marka la develop garaynayo had iyo jeer gobolada bariga waxay ka tirsadaan in miisaaniyadahaani aanay ka turjumin horumarka gobolada bari maxay yihiin qaladaadka soo noqnoqonaya ee miisaaniyadaha qaranku leeyahay aanay uga muuqan mashaariic horumarineed oo laga fulinayo gobolada bari halka ay ka muuqato mashaariic horumarineed oo laga fulinayo gobolada galbeedka qodobka labaad productionka marka laga hadlayo wax soo saarka waxaan filayaa haddaan qaldayn 2% waxba pointiya dheeraa ma jiraan indicators la isla garanayo oo lagu cabirayo 2%-ga soo baxay xagga wax soo saarka iyadoo laga arkana inuu aad u hooseeyo soo bandhigistana soo bandhigayna horta miisaaniyadda ee falqaynteeda aanu soo bandhigayna waxa weeyaan inay bulshada ogaato oo bulshada laftigeedu ay ogaato xaaladdu siday tahay oo ay xog helaan oo ay ku filan helaan sida ka warqabtaana miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay buugta waxa labada abay ka kooban tahay isla markaasna waxaan ku soo koobnay buugga ay arkaysaan haddaba haddii aan eegno miisaaniyadda outcome-ka waxyaabahan ugu muhiimsan doonayna inay ka soo baxaan miisaaniyaddan hore waa iska qaybaysan tahay yacni waxa weeyaan waa human resource baa ku qoran operation baa ku qoran hawl socodsiin wax noocaas ka qoran caqabadaasi waxaan kalena aaminsanahay in dawladdu hoose burcana si gaar ah u haysato xilliga 2012 markii xil wareejis la sameynayay 240 ayay shaqaale u ahaayeen halkaas marayeen maantana 1000 iyo side bay marayaan waana ta keentay 5 milyan ee dawladda hoose burco miisaaniyadeeda ku jirta 2 milyan oo kamid inay yihiin mushahar shaqaale oo markasta uu maartay shaqaale office staff inay jiraan waxaan halkaa ku sii dar lahaa haddii aad u fiirsanayseen soo bandhigistii oo cilmi baadhigu sameynayay ujeedada laga leeyahay wacyigelintan waxa weeyaan miisaaniyaddan way dhamaatay waa run laakiin miisaaniyada kale la sameyn doonaa sanadkan soo socda imka qorsheedii la bilaabaya marka maxaa uga qorshaysan gobolada gaar ahaan xildhibaanadooda iyo hogaamiyayaashoodu inay tagaan caasimadda xafiisyada ay khusayso wasaaradda maaliyadda madaxtooyinka aanu gudbo isoo si yaroo kooban haddaad u taabato cabdilaahi wuxuuna weydiiyey ma loo bedeli karaa hanaankan cashuurta loo qaado mid gobolaysan su-aashaasi waxay xidhiir la leedahay xeer 12 axmed sharaxayay inankaasina ina weydiiyey marka waxaa jirta fahan la'aan ku saabsan center collection cashuurta meesha lagu qaadayo iyo cidda cashuurta bixinaysa haddii uu yidhi wasiirku loyalties bay leeyihiin waxay u eg tahay inay iyagu cashuurtan bixinayaan cashuurta waxa bixiya nin la yidhaahdo end user qaadka lagu cashuurayo kala baydhka markuu burco yimaado ninka ku qayilay baa ayaa cashuurta xaggaa lagu qaada bixiyey marka meeshaas waxay ahayd collection center bay ahayd laakiin cashuur bixiyayaal may ahayn sidaasoo kale xoolahan berbere ka dhoofaya ee berbera cashuurtii loo wareejiyey waxaan waxay ahayd siyaasad waqti hore dhacday oo haddaynu ka eegno xagga wadaniyadda waqtiga xilligii cigaal duruufaa jiray marka way habboonayd sidaa laakiin dee ninkii xoolahan lahaa ayuunbay haddana ka imanaysaa oo ma garanaysaa haddaan dee xoolahaasi jirin may bixiyeen marka ama regional ha laga dhigo ama waxa weeye sidan ay taha loo qaado dawladda waxaan ku shaqadali waa maxay waa central government maaha inay gobolada u kala xado waayo waa central maaha inay local government noqoto talabaad su-aasha uu faad keenay maxaa cabashadan soo noqnoqotaa maxay tahay waxa weeye khaladka waxa iskale nimanka baarlamaanka ugu jira gobolada bariga ayaa khaladka yeelanaya qayb ahaanna waxa yeelanaya dadka intellectualka iyo baamushtarka gobolka degan marka waxay ka timi ma garanaysaa marginalization bay ka timi in dadkii dee ma garanaysaa caasimadii afrikaanka ku ururay sidii hore ay ahaan jirtay ay noqoto marka waxa lagu sixi karaa ama central government inay si sax ah u shaqeyso ama nin waliba wixiisa dee inuu dacal ku dhago yiraahdo kan ana wax ku lahaay maxaan ka qaadanaya arrin baa jirta marka laga tago cashuurahan goboladu waxay si makasii dheeriin dooda ugu badan muddadii ugu dambeysay ka taagneyd 10%-gan hadiyo goor lagu qabanayo point cashuurta lagu qabanayo marka laga tago arrinta meesha taale miisaaniyadda isla khuseysay
waxay ahayd participatory-ga in wixii dambe horta participatory-geeda la saxo qodobka had iyo goor marka la eegayo hadafyada kuwii aynu ka hadafyada marka la eegayo miisaaniyad loo qaadayo ee ay dowladdu u qaadayso marka aynu ka nimaadno macroeconomic indicatorski halkaynu ka sheegaynay qodob waxa dowladda sideedaba ay cashuurtu ka turjumaysaa oo miisaaniyadii ay u taagan tahay inay dhinto inequality-ga iyo regional disparity-ga waa ahdaafta waaweyn ama tiirarka waaweyn ee miisaaniyadii ay ku taagan tahay inay dowladdu dhimayso inequality-ga maaragtay gobollada dhexdooda iyo dadka dhexdooda within the citizens doodo badaniba way taagan yihiin oo imakaba laydharhka iyo arrimaha lagaga hadlaya iyo monopoly-ga laakiin marka la eegayo inay gobolladu kala tagaan oo resource-kii la yidhaahdo gobolkana resource badani ka soo baxaya kana fogaado kuwii kalena markaa la ilaawo haddii 10%-ga maba xuma 10% hadday gabiilay qaadanayso ama ay qaadanayso berberi qaadanayso ama caynabi qaadanayso laakiin muhiimaddu waxa weeyaan intan kale marka development masalan la eegayo development-ga marka la eegayo allocation-kii iyaga haba noqdaan intan ay soo saareen ha looga qoondeeya wixii horumar laga sameynayay laakiin waxa ahayd in wixii kale ee soo baxay waayo dakhliga dowladdu uu fara badan yahay ilaha uu ka soo baxayana uu badan yahay qaar aan kuwanba soo marinba in intii kale dee lagu qoondayntii lagu saleeyo oo markaa halkaas ay projectiskii la isu balance garayaan waa meelaha markaa ay muhiimka tahay waxaynu u baahannahay iminka waxa weeye 26 in looga diyaargaroobo baarlamaankan aynu hadal haynaana dee talaado waxay ku yaqaanaan duuduubaan ku ansixino oo maalinba inta joogtee maxaafidka ah ayaa duuduub ku ansixisa hoos looma eego iminka xoolahaynu ka hadlayno xooluhu halkuu ka soo baxee dhaqaalaha quraynu leenahay wax aynu ku dhoofinno ee sicirbar aynu kula dagaalami karraa waxa weeye bahalaha bariga ka yimaadee xabka iyo xoolaha nool xoolihii noolaa ma muuqato wax lagu soo celinayo wasaaradda xanaanada xooluhu waxay qaadaa talaalkana qaala bixisa beerneemkana bixisa maxay nagu soo celisay iyadu neefkii nooladee dowladda xukumay soo celin ama tan ha noqoto ama kuwii hore ha noqoto ama kuwa dambe imanaya ha noqoto wax allaale iyo waxay soo celisaa oo neefkii noolaa ku soo celisaa ma jiro waa mid miisaaniyadda marka la samaynayo dee dadku hargeysa wada tegi maayaan waxaasha haddii maamul daadejin la sameeyo tusaale ahaan xanaanada xoolahaynu ka hadlaynaa waxbarashadaynu ka hadlaynaa caafimaad baynu ka hadlaynaa miisaaniyadda ta ugu jirta waxay gobollada in la yidhahdo soo samaysta oo gobol waliba markuu samaysto miisaaniyaddiisa wasaaraddiisa u diro dabeetana qaranka ay soo gasho hadhowna uu ku soo noqdo gobolkiisii isu dawayaasha imika 5 litir ma leh xagee kormeeri xagee tegi maxay ka shaqeeyeen dee wasaaradda wasaaradda lagu isticmaalaa hargeysa ama mushaar ka dhigto ama stationeer ka dhigto ama shidaal ha ka noqdo ama sida halkaas lagula baxa 10 milyan marka meesha dhibaatada taala waxa weeye maamul daadejin baan jirin miisaaniyadana ilaa maamul daadejin laga sameeyo waxba ka qabsoomi maaya qodob labaadna wuu jiraa inagu waxaynu ka hadlaynaa maxaa inaga qadiyay mashaariic maxaa inoo diiday waxa la dheeray ninka u dhow baa lafta kala baxa ninka mashruuca qaadanayaana ma ogola inagu waxaynu u baahannahay had iyo jeer laga hadlaa sinaan iyo cadaaladdu dadku waa wada doonaya sinaanta dadku ma ogola tusaale ahaan burco haddii aanay mashaariicba lahayn oo hargeysa mashaariic leedahay oo miisaaniyadda ugu jirto ma ogola inay simanto oo laba marka hargeysa laga fuliyo laba burco laga fuliyo sinaanta dadku ma ogola dowladduna ma ogola ilaa sinaan la helana dadku wuu kala tegaya sidaa aawadeed dee dowladdii ma joogto in la xisaabtami lahay baarlamaankiina ma joogo cidlo maynu iskaga xiiqnay innagu marka annagu waxaan leenahay marka dambe nimankana la keeno baarlamaanka duuduubka lagu ansixinaya halala xisaabtamo miisaaniyadda dambe haddaanay maamul daadejin ahayn ha laynaga joojiyo waayo wasaaraddu waliba inay samaysatay inuu baahanay sidaa aawadeed wasiir halkaa ku soo qortay buug yaroo dabeetana qaatay dee dalkii wuu kala tegey waanu kala waxay si aad barnaamij maydaan soo gaadhin badidiinu dee qaadkan iminka uu hadal hayo professor halkan rafiyuga lagu cashuuri jiray qaadka
wadada kaba dheeru ka soo geli jiray dee burca qaadkeeda iyadaa lahayd raashinka iyo alaabta dhismee burca la keenaya lagu iibinaya cashuurteeda hardboardka innagaa lahayn dee iminka ma lihin kii aynu dhoofinayna neefka adhiga ah lacagta dowladdu ka qaado markii in cigaal sameynayay dalku dagaal buu ku jiray waa run aamin may lahayn maanta se dalku waa aamin neefka adhiga burca lagu iibsay la dhoofinayo ee dowladdu ka qaadanaysa cashuurta dee baanka burcaha lagu shubo adhiiluha ku shubo dabeetana intii hardboardka waynu qaadanayna markaa sharciyaddii oo dib loogu noqdo iyo maamul daadejin bay u baahantay reer galbeedkuna way qayliyaan si aan wax looga soo jarin bay qayliyaan dee reebaro ama qayliyo wax doonta ama aamusnaada oo sidii idaha oo dee iska fadhiya waayahay ilaa labada la isku welimaayeen horta arrinta ugu muhiimsan waxa weeye miisaaniyad marka laga hadlayo waxaynu ka hadlaynaa nolosha mujtamaca reer Soomaaliland ama ha goboleysnaadaan ama ha degmaysnaadaan waxa ay dawladnimadu ugu tala gashay noloshooda si guud marka hadafka ugu muhiimsan ee halkan loo joogayn waxa weeye horta wacyiga in la helo kow labana goboladan hadda aynu joognay bariga doodo badan baa ka taagan gobolada dalka iyo resource-ka dalka soo gala siday saameyn ugu kala leeyihiin iyo mid waliba sidoo muhiimad iyo relevance ugu arkayo dalka wuxuu ku daro marka ama transaction-ka guud ha ahaato ama waxa uu GDP-ga guud ku leeyahay goboladaas waxay ku leeyihiin inay contribute garayaan ha noqotee waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan gobol walba iyo elite walba oo degmo jooga inay horta dhugtaan ay eegaan miisaaniyadda dalka iyo sida kharashaadka la samaynayo iyo meelaha ay ku baxayaan inay eegaan siday noloshooda ula xidhiidhana inay u fiirsadaan iyagu doorkay ku leeyihiin dalka waxay ku darayaan iyo waxa ka soo galaya miisaaniyaddan iyaga ugu tala gashay dawladnimada ugu tala gashay inay la cabiraan hadafka ugu weyn aynu ka leenahay budget analysis waa intaas weey marka anigu waxaan isleeyahay dood badan baa inta badan jirto oo oranaysa gobolada barigu dalka dhaqaalihiisa uunbay nuugaana iyagu waxba ma contribute garayaan dood caynkaas inta badan jirto oo discourse hoota la suuqa jirto marka hadda waxa budget analysis ku leeyahay boqolkiiba 60 GDP-ga dalka wuxuu ku salaysan yahay xoolo nool marka laga hadlayo lacagta adaga dalka soo gashana boqolkiiba 85 kamidi wuxuu ka soo galaa xoolaha nool ee dhoofaya xoolaha nool ee dhoofayana boqolkiiba 75 kamid ahay waxay ka soo baxaan tog dheer sool iyo sanaag marka statistically ay sidaa tahay macnaheedu waxa weeye dalka dhaqaalihiisa dhan marka laga hadlayo trade balance-ka waxa lagu sheego dheelitirka ganacsiga marka laga hadlayo macnaheedu waxa weeyaan boqolkiiba 85 kamida waxa contribute gareeya $3 marka laga hadlayo hard currency-ga dalka soo gala oo ah waxa lagu dheelitiro sixir bar dalka ka taagan exchange rate-ka dalka laga safro currency-ga iyo wixii la mid waxa contribute gareeya $3 marka doonta meesha ku jirta waxa weeye gobolada bariga horta way isku ogyihiin inay muhiimadda intaa le ku yihiin dhaqaalaha dalka way isku yihiin hadday isku yihiin ma u diyaarsan yihiin inay doontaa difaacaan oo ay isu dhigaan inay dadka dhan muhiim ku yihiin uma qalmaan in miisaaniyadda dalka iyo horumarka ay ka hadlayso iyo resourceka sida loo qaybinayo inay doorkoodii ama qaybtoodii inay helaan ma u diyaarsan yihiin marka waxaan isleeyahay u diyaar garowga hadda miisaaniyaddan waa miisaaniyaddii 2025 xukuumadda hadda joogta ma samaynin waxa samaysay xukuumaddii hore laakiin 2026 baa la samayn doonaa gobolladani ma u diyaarsan yihiin inay horta faham u yeeshaan miisaaniyaddan iyo sabab iyo noloshooda saamaynta ku leedahay shaqo abuurka saamaynta ku leedahay adeegyada bulshada dadkana u baahan yihiin caafimaad iyo waxbarasho iyo infrastructure saamaynta ku leedahay isla markaana ma isu diyaarin karaan inay caqabaadka miisaaniyaddan ay noloshooda ku leedahay inay wajahaan oo tusaale ahaan oo kale hadda waxaa la yidhi way wasaaradaysantii tan labaadna waxa weeyaan mashaariicda lagu bixinayaa ma cadda
ee qof baa go'aan ka gaaraya meel fadhiya waa labada tusaale aan soo qaadanay caqabad ka jira tusaale ahaan ma isu diyaarin karaan gobolladani intay abaabulaan dadka matala politically elite-kooda maayirada iyo dadka waxgaradka intay abaabulaan ma ku doodi karaan miisaaniyadda waa in la goboleeyo laga daayo in la wasaaradeeyo si aan u garanno waxayna gobollada iyada noloshada saamaynta ku leedahay saan u garanno marka wuxuu man uga wadaa tusaalahaas in loo diyaar garoobo miisaaniyaddan iyo nolosha dadka saamaynta ku leedahay in la isu diyaariyo la fahmo sida ay ula xidhiidho waanan ka baxay wad maasan guud ahaan waxaan doonayaa inaan mar labaad mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa noqon ka soo qaybgalayaasha dhammaan rag iyo dumarba madaxda mas'uuliyiinta iyo mudanta ay ku jiraan madaxdii hore gobolka iyo degmaduba halkaasaan doonayaa inaan ku soo koobo falanqayntii aad iyo aad baa u mahadsantihiin